horta hore qofka ama ummadda qasaartay maxaa calaamado u ah ninkan la yiraahdo ibn al-qayyim al-jawzi waxaan ka hadlaynaa waa nin 1292 ama leeyahay dadka waxaan ku yiri waxa akhridaan buugaagta la qoray 1200 ninkaana kamid ah ibn al-qayyim isaga wuxuu sameeyay 10 calaamadood wuxuu 10 ka calaamadood cid lagu arkaa way qasaarto yiri ama shakhsi ahaado ama qoom dhan ha ahaado mid koowaad wuxuu yiri waxa weeye cilmi aan lagu amal falin markuu yimaado qasaara jirto cilmi aan lagu amal falin marka maanta anagana bariyaan aqoontii waxa saan ugu badatay cilmi hadaama qasho meel kale loola ordaa cilmiga ugu weyn waxa macrifatullah kulligeena quraanka naqaana listi hatta illa jis'amo waa wada naqaana hadana jis tabaarak ku diri karin quraanka hada cilmiyo badan waxa ku jiro tusaale ahaan midaan looga hadlayo Abu Bakar oo maxaa la yiraahdaa falaqta hamal aqaba horta aqaba waxa la yiraahdaa wax kasto ka hor istaagayo yoolka aad nolosha ka leedahay marka noloshu ma ahan inay guriga dhisatay aakhira sad ilaahay uu kulmi leeyahay janno ku heleed waay marka waxa la yiraahdaa falaqta hamal aqaba isagu wuxuu jiiray aqabadihi nolosha uu jiiray soo ku jiiray faku raqaba yani qor furasho ama idcaam in la masaakiin la qoodiyo marka cilmiga ku jiro meeshaasoo yani in qof dhibaataysan maanta dhibka ka qaado ama qof gaajoon wax u tarto waa cilmigaas kulligan waan naqaanaa meeqa ku amal fasho marka waa qof kasta waxa arkayda kisteero haysto inuu biiriyo rabaayo wax ku daro marka waxa lagu leeyahay qoomkii ama qofkii cilmi leh ee hadana aan ku amal falin cilmigaas uu qasaaray marka midda waa mid ugu hooseeyda taana waxa idinku tusaa yani qof kasto naga mid ah inta ka badan u yaqaanaa ku amal falkeenana aad u yaryahay marka waxa la rabaa qofka cilmiga inuu ku amal fal haduu isku amal falina uu qasaaray midda labaad waxa waaye amal hadana ilaahay oo raali ka yaanad samayso fal oo sama falid ah oo fal aad samaynaysa hadana mid ilaahay raali ka yahay oo waxa arkayda dad maanta acmaal samaynayaan laakiin acmaash ay samaynayaan oo rabbi raali ka ahayn hadii marka aad samaynayda fal hadana uu rabbi raali ka ahayn qasaarad ku suganta mid saddexaad waxa la yiraahdaa maal aan la bixin hanti aan la bixin oo qofka bini aadamka maanta marka aad tiraawni waxa haysata bixi wuxuu ku leeyahay anaaba shaqay ka dab urdo wax badan ma haysto wax bixintana badnaasho iyo yaraan lagu cabiree waxa lagu cabiraa inta aad haysata ka badan aad bixin karto oo waxaan u maleynaa Umar bin Khadaab inuu ahaa iyo cali gurigiisa oo yimid markaas islaanta waxay u keentay cunno macaan oo dheeriya maanta markaas wuxuu yiri qarashka xageed ka keentay waxay tiri biilka aad isiinaysa yaa shilin dheeraay tiri maalin kasta shilimadii aruuriya maanta xalwadan kuugu sameeyay isagana xafiiska dawladda inta la hadlay wuxuu yiri biilku guriga Umar shilna ku dheere hana laga jaro marka waxa lagu leeyahay bixi waxa waay ma ahan inta wax weyn ka heshay inta aad haysato hada laba rootahayda barbix hadayna taa dhicina qasaara jirto maanta marka fiiri taajirkeena xildhibaankii wasiirkii madaxweynaha waxaaba ka soo tag hatta ardaydeenan inta iskuulaadka aadayso ninkasta $5 raajafku ugu jirto shantaas labiyo baraa ku filan maanta oo dhan labiyo bar oo aad bajaaj ku raaci lahayd iyada lafteeda inta sadaqeyd jaamacadda ma fogay u lugay marka waxa lagu leeyahay maal aan la bixin qofka markay jirto meeshaasna waxa jirto qasaaro midda afraad waxa waaye qalbi oo jacaylkii alle ku jiro aanan hadana laga run sheegin oo tusaale markaan jacaylka hadlayno waxa aad jeceshahay waana u hoggaansataa jacaylka laga hadlayno ma wax adduunyo waa inaad ilaahay ku abuuray iyo diintaadii iyo nabigeedii iyo aad jeclaataa inaad jeceshaana waxa daliil u ah sida aad ugu hoggaansan tahay waxa uu ilaahay ku farayo hadaa maanta markii aan ilaahay jeclaa diinta islaamka aan jeclahay laakiin waxyaabii ay diinta ifareed aan sameeyeen meeshaan waxa ku jirto qasaaro mid lixaad waxa waaye jirka waa jir aanan samayn wuxuu raali alle ka yahay ama ummadda aan loogu gargaarin oo tusaale ahaan dad feero weyn tahay ee aad u jeeda maanta islaan baaldi weyn sido xal raba inaad la qaado
haddii oday yar jidka maraya jirkaaga awoodaada jira ahaaneed aada leedahay aad ku kaalmayso. haddii marka waxaa lagu leeyahay jirkaagu uusan qabanayn wax markaa uu ilaahay raalli ka yahay ama aadan ummadda ugu gargaarayn, iyadana khasaaraa lagu sameyn yahay. midda kaleeto waxaa waaye waqtiga, oo waqtiga waxaa la yihahdaa laba u kala baxaa, waqti baxay iyo waqti ba-ay. waqtiga baxay waxaa waaye la yihahdaa waqti wixii markaa lagaa rabayne aada samaysato marka uu kaa dhamaadana aadan u shallaayeyn. waqtiga ba-ayse waa mid wixii lagaa rabana weli ay ku yaalaan, waqtigana uu kaa dhamaada. oo noolaha ilaahay abuuray horta waxaa waqti xisaabsado waa bini aadamka. oo maanta ri ku dhahaysa arkimeed aroosaan u socdaa iyo jaamacadda xilligaasaan bilaabaa, xilligaasaan guursanaa, shaqadaasaan aadaa ma jirto. waxa guur iyo waqti oo waqti tirsanayo, shaqo, waxbarasho, guur, ilmo, ballan, xaafadda noogu kaala, waxa waqtiga xisaabsado waa bini aadamka. ama si kalaan kuu tusaa, markaa iskuulka dhiganaysay waxaa lagu baray juqraafiga. markii lagu dhigaayo adduunka waxaa lagu waa baloni, marka wuxuu ka kooban yahay lagu yiri dhig iyo lool. oo dhigga kan ugu muhiimsan waa dhulbaraha. dhulbaruhu marka waxaa leeyahay adduunka wuxuu u kala baraa waqooyi iyo koonfur. maadaama marka dhulbaraha oo Soomaaliya meel hoose sanguni la yiraahdo oo ka maro Soomaaliya inteeda badan, marka waxaa leeyahay Soomaaliya waxay ku taalaa dhulbaraha waqooyiga. dhulbarahan jirnaa anaga oo westernka, dhulbaraha waqooyigiisaan ku jirnaa oo koonfurta kuma jirna Soomaaliya markii la yiraahdo. ama marka Muqdisho oo kaleeta aa fiirinaydo waxaan u maleynayaa tahay 2.469 xariga ah Muqdisho maro. yacni maadaama dhulbarihi uu eber yahay, eber kow xariga labaad kusoo xigo, oo yacni haddaa u fiirsato dhulbaraha xariga kusoo xigo madaaris jiddi, madaaris sardaan kan kusoo xigo dhexdiisa waxaa ku jirta 60 xarig. hal xarig kastana dhexdiisa waxaa ku jirta oo sida daqiiqadii oo kale waayo 60 second iyo 60 daqiiqo. marka maadaama aan 0 dhulbari yahay 012 Muqdisho waaye 20496 walba noocaas ka tahay. marka haddaa aragto kan dhigga la yiraahdo oo saan u qoran wuxuu sheegaa meesha adduunka kaga taalo. mid kale marka lool la yiraahaa jiro, loolka asagana wuxuu soo maraa la yiraahdaa Greenwich Observatory-ga oo meesha marka ay Ingiriiska fadhiyaan magaalada Greenwich la yiraahdo oo soo maraa eber ay ka dhigan asagana. isagaas marka wuxuu sheegaa waqtiga, oo asaga maadaama eber ay tahay 15 kiiska xababa waa hal saac. inaga Soomaaliya hadana 45 aan ku noolaataa, micnaheedu marka waxaa waa Greenwich iyo Muqdisho waxaa u dhaxayda 3 saacadood. kaana marka waqti uu sheegaa. waxaa la mid ah marka hadda markaad subax soo kacdo ee magaalada aadayso, si oo waxaad u baxdaa joog ah. qofka marka uu socdo ama uu magaalada maraayo waqti uu xisaabinayaa. laakiin maalinka dhimato adoo lagu sidoo jiifa lagu bixinaa. jiifkana muxuu sheegaa meesha lagu wado. meesha lagu wadana meel kale ma ahane aakhirada iilka afkeeda laga aroorayo lagu wadaayo. waxaa waaye waqti maaha markaas. marka horta waxa waqti xisaabsado waa bini aadamka. waqtigaasna haddii uu kaaga baxo wuxuuna ilaahay raalli ka ahayn, meeshaana khasaara ku jirto. qodobka 8 waxaa waaye fikirka. markuu qofka bini aadamka ka fakiro waxaan la yiraahdo bilaa macna, wax bilaa yacniya, waxaan qiimo lahayn uu ka fakiro. beriyaa waxaa dhacday luqadahan aad u jeclaa inaan fahmo. maqaarij الحروفka iyo waxaasaan fiiri jiray, soo Chinese-ku u hadlo, Faransiisku u hadlo. waxaa igashaniyaho luqada xayawaanka bal ma fahantid. markaas waxaan sameeyay luqadan ooko u bixiyay, af ooko. oo waxaan arkay xayawaan kasto shaqal waaye shibana ma leh. waxa uu dhahay ba taadiya un ka maqanay a e i o. markaas ayaan waxaan isku mashquuliyay af ooko inaan qoro dameerka soo u hadlaa. marka dambe waxaan arkay inaan waqti geliyay bini aadamka adoo la hadli kara xayawaanku daba dhigay. markaad yani aad gasho fikir aan adduunyo aakhiraba, adduunyo horta yaana dhihin, laakiin adduunyo aakhiraba isku xiran yihiin. adduunyo aakhiraba aan wax faa'iido ku lahayn, waxaa meeshaasna khasaara ka jirto. qodobka 9 waxaa waaye u adeegida. wax la yiraahdo inaad u adeegto cid aan Ilaahay u adeegin. ha noqoto shaqo, ha noqoto taageero, ha noqoto waxay rabto cid aad la shaqaynayso iyo la shaqaynayso ayada waxa ay qabanaydo ma tahay wax Ilaahay looga raali lahaansho looga raadina. haddaan Ilaahay raali lahaansho looga raadinin
markasta aad u adeegto qofaan ilaahay u adeegayn meeshaana khasaara ku jirto. midda ugu dambaydo waxaa waaye marka ay timaado rajo iyo cabsi aan ilaahay laga qabin, oo ama rajadaada iyo cabsidaada aad bini aadam kale ka sugto. oo tusaale haddii maanta aad rabto inaad suuqa miis dhigatay ku ganacsato, meeshan uu gaari yaallo, ma gaariga intuu tagta xaalada gaariyow markaad baxaydo hay dardarine iga yara leexo, mise darawalkaad u sheegayda la darawalo meeshaan miisaan hortaada dhigtay markaad dhaqaaqayso bal hay jiirin. marka horta war gaari la hadli meesida darawalkaad la hadlay. adduunkan iyo noole iyo qadar iyo wax walibana rabbiga ku abuuraa iska leh. marka makhluuqaadka la hadlinaya qaaliq la hadal. taa marka macnaheedu waxay tahay markay rajadaada iyo cabsidaada ay makhluuqa ku soo ekaato meeshaana khasaara ku jirto. marka ibn al-Jawzi 10 qodob iyo ku soo koobo wuxuu yiri 10 cid isku aragtaa khasaare ku jirtaa, cid ka baxdaana liibaanay ku jirtaa. marka waxa la rabaa marka 10 fahanto waxaad fahmaydaa horta waxa xaq iyo baadilkii ku kala baxaa. oo xaq waxa la yiraahdaa horta Soomaalidan kaaga dhigo xaq waxa la yiraahdaa wax kasta oo waaraya haddana gool leh xaq la yiraahdaa. baadilsa waxa waaye wax aanan waareen haddana ciyaar ah. haddaan luuqad adag kaaga dhigana waa adduun iyo aakhiro. adduunku mana waarto ana ciyaar. wax kasta oo aan ka sheekeeyno dawladda asaasa xisbiga asaasa balayda isku xiijayno waa ciyaar haddana waari mayso. laakiin waxa gool kale ee waaraya waa aakhirada. marka qofka ay ku weynaato aakhirada adduunku u macaana. marka qofka adduunku ku weynaadana adduunna wax ka keeni maayo, aakhiradina halis uu ku sugan yahay. oo waxa la yiraahdaa haddii xaq iyo xaq horta isma qabtaan, oo ana maanta xaq ku taagan iyo adoo xaq ku taagan weligan isnicmayno, madaxa saarayna isidanayna. marka waxa la yiraahdaa laba xaq isma diriraan. xaq iyo baadil haday isqabtaanse maadaama rabbigeena abuur oo xaq la jiro xaqa guuleysanayo. balaayada waxa waaye markay laba baadil isqabtaan weligood heshiimayaan, madaxa la isku jiraa. inaga maanta muddo 30 sano waxaan madaxa isku jirno, hadda waxaaba muuqanayso laba kasto is hayso inay xaq isku heeyeen, laba baadil isku haysatahay. oo markay mid xaq leh iyo mid baadil ah is qabsadaan kan xaq laha guuleysanaa. haday labadooduna yani xaq wadi lahaayeen inta heshiiyana ayuu garba is haysto iyaan arki lahayn. laakiin maanta marka aragta laba kasto is haysato dhinacyada fiiri, laba fanaan, laba dhakhtar, laba siyaasi, laba urur, laba macallin, laba arday, laba saaxiib, laba isqabto oo is haysato daa aragto baadil labadooda ku taagan yihiin. waayo hal qof oo xaq ku taagan mid baadil ama sii socdeen. haddii labadooda xaq aadi lahaayeen la isma qabsadeen. marka horta waxaan rabaa hadaynu fahanno waxaan khasaarooyinka la yiraahdo oo xaq iyo baadilka ay noo kala baxaan, waxaan fahmaynaa waxa uu maanta qof waliba u taagan yahay oo rabo inuu ummadda u sheego ama yani oo haddana qodob kale oo muhiim ah rabo inaan kusoo gabagabeeyo waxay tahay horta waxa la rabaa wax waliba in dar Ilaahay u samayso, in dar Ilaahay ka taal rabaa oo amal aan dar Ilaahay ka ahayn markaad samayso saa ku garan kartaa horta wax in dar Ilaahay ka yihiin in kala xataa hadii aad rabto inaad fahanto waxa ku garan kartaa marka dadka soo istaagayso iyo marka kaligaa tahay wixii isku dhadhanay ku yihiin. haddii isku dhadhan ku ahayn dar alla kaama ahan. bariyahan waxaan arkaa qolo inta camera iyo wax soo qaataan laptop soo hortaada soo dhigana derbiga gadaal waxyaabo qol uusan deganin ama guri uusan deganin oo qurux badan ku soo sawirayo, dhar qurux badan ku soo gashanayo. markuu filimka dhameeyana marihiisa jaajacani qurgiisa dhex fariisanayo. dar Ilaahay marka lagu dhahayo wax kasto xataa Facebook ku sameynaysa la rabaa in dar Ilaahay ka ahaadaan aysan ka noqon ummad wareeri. waayo qof aad wareeri karta ma lahano qof waliba maalintiisa galeeda. intaasaan jeclaan ku soo gabagabeeyo. waa mahadsantiin.